Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada kanaalkeena Dansheeg. Maanta waxaanu ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan shirqoole iyo dilal ay sameysay hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA. Waana 4 dil oo loo geystay hogaamiyaal iyo madax. 1. Madaxweynihii Ecuador Jimmy Rodríguez. Jimmy wuxuu xilka qabtay sanadkii 1979 wuxuuna bilaabay siyaasad xakameynaysa shirkadihii Imani ee Ecuador. Jimmy wuxuu bilaabay inta kadib siyaasadda batroolka, wuxuuna u arkay waxa kaliya Ecuador leedahay inay tahay macdanta batroolka. Sidoo kale maalgeliyayaasha maalgashanaya Ecuador wuxuu waajib kaga dhigay inay dheefta ugu badan dib ugu soo celiyaan shacabka reer Ecuador. Sanadkii 1981 Jimmy wuxuu bilaabay siyaasad cusub oo kale dhiirigelinaysa shirkadihii caalamiga ahaa iyo faa'iidadoodii, wuxuuna yidhi haddaanay shirkadaha batroolka maalgeliyayaashu aanay la iman qorshe lagu caawinayo shacabka reer Ecuador ay tahay inay iskaga baxaan waddanka. Kadib markii la ogaaday mashruucii hydrocarbon, dabcan sida lagu yaqaano Mareykanka ma ahayn mid aqbalaya amarada, sidaas ayuuna ugu qorsheeyay dil madaxweynihii Ecuador, wuxuuna dilay isagoo safar diyaaradeed ku jira. Dilkiisana wuxuu ka dhigay shil bishii May sanadkii 1981. Madaxweynihii Panama Omar Torrijos. Panama wuxuu xukumayay sanadihii 1968 ilaa 1981. Laguma magacaabi jirin Torrijos madaxweynaha jamhuuriyadda, laakiinse wuxuu la baxay naanayso fara badan inay ka mid yihiin hogaamiyihii u sarreeyay kacdoonkii Panama iyo hogaamiyihii u sarreeyay xukuumadda. Iyadoo Torrijos aanu ku soo gaarin kursiga doorasho, ayaa haddana wuxuu saameyn ku lahaa Panama isagoo madax banneeyay go'aamadeeda. Waqtigii Torrijos waxaa madaxweyne ka ahaa Mareykanka Jimmy Carter, kaasoo Panama ka caawiyay samaysashadii kanaalkii Panama. Sanadkii 1979 Torrijos wuxuu bilaabay mashruuc cusub oo lagu sameynayo kanaalkii Parallel. Mashruucan wuxuu ku maamusay Jabbaan kadib markuu ka diiday inuu siiyo shirkaddii Mareykanka ahayd ee Bechtel. Wuxuu kaloo u qaatay go'aano dhowr ah si loo yareeyo saameynta shirkadihii caalamiga ah ee Panama ayna uga caansan tahay shirkadda United Futures oo uu lahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush. Omar Torrijos waxaa lagu dilay qarax diyaaradeed oo qarsoon bishii July sanadkii 1981. 3. Madaxweynihii Congo Patrice Lumumba. Lumumba wuxuu ahaa hogaamiyaashii ugu caansan ee kasoo horjeestay gumeystihii Belgiumka, halkaas oo uu ka aasaasay dhaqdhaqaaqa xornimo-doonka wadaniga ah ee Congo sanadkii 1954. Wuxuu la dagaalamayay ilaa sanadkii 1959 halka ay qabteen xidheen ciidankii Belgiumka muddo 6 bilood ah ka hor intaan lagu wareejin diyaarad aadaysay Brussels. Waxaa dhacay banaanbaxyo lagaga soo horjeeday arrinkaas. Belgiumkana uu xakameyn kari waayay banaanbaxayaashii ilaa ugu dambeyn la isla qaatay in ictiraafo bishii Juun 1960 ka hor intaan la ansixin sharciga dhexe ee dastuurka. Bishii May taasoo la ansixiyay dowlad dhexe oo maamusha waddanka, awoodana uu leeyahay ra'iisul wasaaruhu. Xisbigii Lumumba wuxuu ku guuleystay doorashooyinkii isagoo helay aqlabiyadda shacabka reer Congo, wuxuuna la wareegay xukunkii. 5 maalmood kadib markuu la wareegay Lumumba, waxaa heshiis kale Mareykanka iyo Belgiumka si uu afgamiyaan xukuumadda cusub, iyagoo taageero siinayay gobolladii Katunga iyo Kasai, halka ay ku dhawaaqeen inay sameysanayaan midoob, doonayaan inay ridayaan dowladda Lumumba, iyagoo taageero ka helaya Mareykanka iyo Belgiumka u soo mariyaan taageerada shirkadihii macdanta Belgiumka ee Congo. Sanadkii 1961 Mareykanka iyo Belgiumka waxay taageereen inqilaabkii uu sameeyay General Mobutu Sese wuuna inqilaabay Lumumba, waxaana la xidhay Lumumba iyo saaxiibadii, kadibna loo wareejiyay xabsi ku yaala Belgiumka. Waxaa lagu dhex toogtay xabsigii dhexdiisa, waxaana ku filayay dilka saraakiil Belgium ah. Ugu dambeynna waxaa laga takhalusay meydadkoodii iyagoo yaalay muddo 4 maalmood ah, waxaana loo jarjaray cadcad kadibna lagu shubay sulfuric acid. Arrinkana waxaa fuliyay saraakiil Belgium ah. 4. Hogaamiyihii iyo madaxweynihii Cuba Fidel Castro. Marka la eego jiho walba sirdoonka Mareykanka kama uusan guuleysan dilkii Castro, laakiin ka hadalka aynu u soo qaadanay maanta ma aha mid aan waxtar lahayn. Waa ninka ugu weerarada badan ee la isku dayay in la dilo, waxaana dilkiisa lagu guuldareystay 638 jeer oo fashilantay tan iyo sanadkii 1959 ilaa uu xilka ku wareejiyay walaalkiis ka yar ee Raul Castro sanadkii 2008 sababo caafimaad darro oo soo wajahday. Waxaa jira maqaal caan oo laga diyaariyay arrintan, waxaana la dhahaa 10 wado ee kala duwan ee Mareykanka u maray dilka Castro. Isku daygii dilkii fashilmay dhammaan waxaa hogaaminaysay hay'adda sirdoonka Mareykanka CIA, iyagoo garab ka helay mucaaradkii Castro iyo xubnihii ka cararay waddanka. Waxaana xilligaas soo maray Mareykanka madax kala duwan sida Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Carter, Reagan iyo Bushkii weynaa.
ilaa ay soo gaadhay Bill Clinton, iyagoo dhammaantood u adeegsanaya dilkii sabab kala duwan sida walxaha qarxa, sigaarka sumaysan iyo sun loo haysgeliyay kubaddiisii baseballka, laakiin dhammaantood waa ka badbaaday. Maanta mawduucan intaas ayuu ku saabsan yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.